السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا عشر كله روحي سلة عشر كان وحربا إن أرضيدا أنت كران كايا أجرسين كرتو أجرسيسو channel ka subscribe saarto like ta challenge-ga sa ku soconay aku socono waxa umaleynaa in video bas la sameyn doono qof walba oo video soo gaaro isku day inuu like saaro ama cashirka ku ahaado muhiim ama yuusan ku ahaanin si accident laxda farta kaaga dhacdo adoo iska socdo okay ما سنتين عشرة وسعودان أونلاين كا وقصو بيري كرتان قيبت الزوم كا iyo qaybta telegram ka nagala soo xiriir numberka channel ka ayuu yaala si lagu diiwaan galiyo home tuition wajir hadii u baahan tahay xaafad in casharada lagu dhigo u baahan tahay macallin madow ah macallin Kenyan ah mise macallin Soomaaliyeed u baahan tahay macallimada u baahan tahay hadii aad macallin u baahan tahay kulli waad heli doontaa okay عشركان وحربا سؤال بدن أرضي يسوي دينان هورين وحوجعلها هنا قصة شرحي أي ربعنا شرحتان قصة اليوم يوح إيرادي هبا هنا قدروا وهي أكتر مركز أوكي سيدة كبران كرا لقدة سواحلية سيدة كبران كرا لقدة سواحلية وسؤالها بدنا أرضي ده يسوي ديان أنا قوم يلا بدن كفيرنينو أي أصلا تابن دونا ciladaha jirana waxa jeclahay in dadka luqadda markay baranayaan ay tahay mid wada haysato qaabka looga hortagi lahay araba ina meeshan ugu sharaxo si luqadda ay ku fudaato okay luqad walba horta barashada waa isku wada mid laakiin marka Soomaaliga la dhaho waxyaabo dheeraad ah oo laga rabo inaad sameyso ayaa jirto حاول جيدا هدي أبرنيسو بسالو كله لقدة تركي أو كله لقدة إنجليش أو كله هدي هذا هنا أرضي وحاجة سكول أو قلين هنا يقال حتى قدر لقدة هندي أفندي حتى قدر صوبتا وهذا الكران محيط أيون سكول وقلين سيب هاو بدنا داني قبله af Turki waxa ay gabar wiilka Turki ah kan af Turki ku hadlayso sababaha marka hadii ay idin sheego waxa kamid ah ardayda mise dadkaas oo kale wixii said u badsadeen waxa waaye wax walba ay ka hormariyeen daawashada musalsalyo ku baxa luqadaas ee ku hadlayaan mise ay yaqaaniin hada hindi ama hada Turki luqad walba hadaas fiirisane saasa laga rabaa laakiin dadkaas iskuul uma galin waxooga way ku yara fiican yihiin marka loo fiiriyo Soomaaliga ayagoo waliba ku dhex jiro dad Soomaali ah waxa uu dhahaa marka Soomaaliga luqadaha barashada isku mid ah Soomaaliga ka ahayn hadduu ku jiro xataa Soomaaliga oo luqadaha kale oo la mid yahay halka meel uu duwan yahay waa meeshaas oo daawashada ah ilaa ardayda daawashada xoog masaaraan haddii saaraana waxa arkaysaa luqadda Soomaaliga lahjadihiisa oo badan yahay laga yaab ardaygan inuu Soomaaliga yaqaano marka aniga la hadlaayo mis marka aniga Soomaaliga ku hadlaayo inuu ifahmaayo saas darteed ardayda markay hadal sameynayaan oo kale anigu uma galo qaybta online oo kale hadda macalinkiisa oo hadalka ee la sameeyaan aniga ma ah haddii qofka u baratay qof ka duwan haddii aad wax u jawaabi karto waa roon tahay cashiradeyda ardayda soo dhagaa ugu soo dhacaayeen haddaa Soomaali ku hadlo hore ka fahmayaan waxa isku malayaa marka Soomaali inay yaqaaniin mogtahay macallin kale u gelinaa marka so pointiga ugu horeeya ka hadlayna waa pointigaas daawashada ah mise dhageysiga ah Soomaaliga wuxuu ugu yara duwan yahay luqadaha kale waxa waaye lahjadiisa iska badan waxa arkaysaa qof haddana meel oo luqad fudud basiid loogu hadlaayo channel ha ahaado mise musalsal ha ahaado loogu hadlaayo oo ardayda loo tilmaami kara ma jiro waxa arkay hal musalsal oo Soomaali ku baxa isleedahay kana xoogaa ugu yara qumane ardayda la wadaag waxa ka buuxa English lagu dhex daraa luqada aanan macno lahayn luqad xaafadda iska hadaan oo lagu isticmaalaa ku dhex arkaysaa
marka dhinaca daawashada mise dhageysiga Swahiliga iyo luqadahan kale halaas kala duwan yihiin taas inaad ogaato marka booskan oo dhageysiga mise daawashada maxaa laga rabaa inaad ku buuxiso waxaa laga rabaa inaad ku buuxiso suuqa asla socon pointka waxa ugu hormaraayo pointyaasha kale waa isla haynaa oo ardayda way sameeyaan pointyaasha kale way imaanayna marka tan hadhow gaar ugu soo laaban doonaa taas koobaheed labo cashirka ugu horeeya oo Swahiliga nafsiga waqtiga iyo ficilka qadaadka ardayda ay sameeyaan waa nafsida inay isdimariyaan nafsiyada inay isdimariyaan nafsida inay iska xifsa ku qasbanta iyo waqtiyada wax u taagan kadib ficilada si loogu dhijinaayo marka isku dhijisane macnaha sida loo macnaynayo marka dhahana ardayda nafsiga waqtiga ficilka meel saara markay saaraan markay isku dhijiyaan macnihiya meesha ka hilmaamayaan muhiimadana waa macnaha uu imaanayna marka macnahaas uu imaanayna qadaad kale oo dhaco marka luqad foreign ah baranayso luqad ajnabi ah marka baranayso waxaa mamnuuc ah in luqad kale oo ajnabi ah inaad u sii macnaysato luqadda u dhalatay oo aad fahansan tahay saas darteed waxaa u arkaysaa iskuullada badanaa islii mise meel walbaba ha ahaato qof luqad dhigaayo luqaddaas oo dhigaayo dadka uu u dhigaayo ka dhashay asaga dadka uu u dhigaayo ma aha inuu asaga luqadoo dhigaayo oo u dhashay hadduu qofka Swahili yahay hadduu Kenyaan yahay macna inkastoo ay ku fiican yihiin ay bari karaan laakiin waxaa kasii qurux badnaan lahayd qof luqadan qof dadka uu u dhigaayo inuu ka soo jeedo saar wuxuu ula jeedaa haddii qofkaan Maasai uu yahay qof Maasai ah oo Swahili sharixi karo inuu dadka Maasai wax u dhigo hadduu yahay Soomaali ardaygan Soomaaliya inuu macallin Soomaali Swahili yaqaano u sharixi karo saas sababta loo yeelay waxa waaye in ardayga uu fahmo luqadan loo sharaxayo qofkan u sharaxay inuu toos fiican isku fahmi karaan tusaalooyin soo qaadan karaan mahma Soomaali soo qaadan karaan adiga marka macallinkaas kugu sharaxay buugaaga soo qaadatay af Carabiga ku qorqorosa Carabiga baromba dada English ku sii hoos qoraay wewe waxa ku qorqoratay you CC waxa ku qorqoratay we waxaas wax soconay ma qaladaadka la gal qaladaadka kamid ah luqadda sharaxanayso luqadaada af Soomaaliga aad taqaanid ku sharaxo that's why anaga marka sharaxeeno Swahiliga aan luqad kale ugu sharaxin macallinka English markuu sharaxayo Swahili kuma sharaxayo English kugu sharaxa mise English Soomaali kugu sharaxa mise English ku sharaxa macallinka Swahiliga marka badanaa ma arkaysid macallin Swahili ku sharaxayo ilaa Swahiliga ardayda dhan oo ku cusub yahay Englishka laga yaabo in suuqa iyo wax kala ka aragtay oo macallinka English intuu ku fasiro waa wax ka faa'iideysan okay waxaan marnaa taas waxay ahayd pointiga labaad oo ah nafsiga waqtiga iyo ficilka in la iska dhiso pointiga daawashada ku soo laaban doona iska dhistaanka marka xifdiso macnaha ina macnayn karto marka wax isku dhiso macnahana waxa qaldaaya ardayda ay xoog u saareen waxa kamid ah sababaha yeelayso in luqad kale ah ku macnaysato waana mamnuuc taas ka fiiri nafsiga waqtiga ficilka waa taqaana ereyadu wuxuu isku toosay hadalkiina wali waxa waaye waa 50-50 naxwayaala lagu siiyay jumla inaad dhisto isku day qaabka jumlada lagu dhiso way fudud yihiin Swahili waxa waa luqadaha ugu fudud oo jumlada la dhisi karo marka jumlada dhisto waxaa fursad u leedahay hadalka inuu ku fudaado hadalka uu ku fududahay meelaha ka jaan qaado aan leedahay maxaa ka maqan marka jumladan aad dhisi karto inaad niyadaada ka dhisto buug waa ku qortay niyada ka dhisto buug ku qortay wadada labaad waxa waa inaad niyadaada ka dhisto hadalkii dhaxdo adigoona qorayn markaa oona weliba qofaa ku dhahdo mis aragta niyada markaa Swahili ku hadlayso erey badan mis jumlooyin caadi u sheekeynayso af Soomaaliga ku hadla amal u sheekeynay wixii af ka soo bix marka lagu dhaho nakata laakiin marka iska fadhiso macala saaxib la sheekeysanaysaa mwalimu ulienda wapi umepotea wapi bana siku hizi sijakuona niyada waa ka dhigi kartaa wax isla hadal markii macalin lagu soo istaajiyo malahan marka
وبرشو عربك مسافك مو برن سواحلي مو وجي واتقانا وحوي كاسو بحلا يهين لي لكن واحسا وأصلها هنا سواحلي أنا نواها أذا نواحسا لكن هلك وحبس أقول دارا وحوي هاي أنا أفكي أكده هو أذا جودها كلا ده وح مركب حسمين إسا اسكتي إنا لحظة جملة دوار استي قف على هذا الشيء قف كاس حتى ورديها بصراحة أنا كل جملة وألف مركب جملة وألف هذا ورديها ورتها كان سواحلي عادي حتى مو فكري يسد هذا الكعادة نيت كدوسا وطق لا شيء كيسو بدنا نرضي وشيء اسكتي قفك الباب كتاجن ورديها الباب كتاجن لا شيء كيسو وحاولها وحواي ما عندك كل بسناي ودد ربو إن لا شيء كيستو ما دام شقة هاي شقة أو إن كليئة أو قف ميلو إسكفديو وجعلان لها ينقف كرو قاضو لا شيء كيستو سمر كوبشة وسوقد لفريسو لا شيء كيسو وحوينا كفايدة أوكي تاسوا نفسي وقتي فعلك مرة لسكول جيو وحاجلنا جملة ديستانكا يجو جملة مركها ديستو سأو إكسكيوت كرين لهاد مس أو استعمال لهاد مس أو أبلاي كرين لهاد الجملة داس إنا كرتداس يلا تكونفيدنس جاز الجملة ده أكون حظ وحاجة لو هذا الكاد دسايو والصواب أي إن أنا هادلين أديكو الجملة دسكرو ودواقي ده دبكا كو قبطو عرف كبوليس كيس وحانا دهني وحاكو ساري كرتا أخرس reading أو kusoma unastahili au unapaswa kusoma kwa sana au kwa zaidi na kile kitu ambacho unakifanya sasa hivi واحد سمينيس wax ka siyaadaha ina sameeysa laga raba hadii akhriskan ahad sameynayso waxba uu kugu soo kordhin ina laba jibaarta laga raba waxma in si fiican loo fahmo shirka hadii asaas sameyso arabkan uu ku fudaado naxwayaashan ahayso oo jumla isku toosin karto wax ka maqamala waxa usoo laabanayna markaa pointiga ahay daawashada iyo waxa ku bedelayna daawashada Swahiliga iska daawo no problem laakiin la soco lahjada Swahiliga way tira badan tahay effect weyn ah ee maan saameyn weyn ah ku keenayso luqad ahaantaada ma jirto laakiin hal ilabo waa ka faa'iido arday ila imaada jir fiidiyoyaal oo macneeyo naka fiidiyoyaasha macneenayo waxyaaba tira badan oo macna aan lahayn oo useless ah mise English oo ku dhex jiro mise hadal aanan English soo xilmidna aan ahayn luqad shan laha jiro luqad iska xaafadeed ha jirto ee ku jiraan laga yaaba okay booska ku bedeleen waxa dhahnay ha ku ahaado suuqa ku ahaado macnaheeda kaliya ma aha ina suuqa ku dhex isticmaasho luqadda waxa ka wada oo kale in dadka say ku hadlayaan aad dhageysato wixii aadan fahmin qoro markaas buugaada telefoonkaada ku qoro waa isoo diri karta ardayda waxa ku dhijiray igu keen marka shaqada soo baxeen oo fasalka soo aadaysan ii keen fasalka igu keen maadaama fasal aad joogin wixii telefoonka isla WhatsApp-kayga soo gal ku soo qor macallin maanta hatta xaaladda markaas lagu jiro waa ii sharxi kartaa waxay kartaa macallin waxa jiray laba qof oo saanisaana wax hebel la isku haystay si jumlada aan maqashay oo kale laga yaabo in macna toos ah lahayn laakiin wax loola jeeday markaas waa ku sheegi karaa hadii sheekada ay ka daba geeso asfaan amalena soo xilxidhan raadada iga daba geedaha dhalinyarta raadada iga daba geeso ula jeedada waa fahma waa ku sheegi karaa marka macnaheeda suuqa ma qaybtan oo dhageysiga mise daawashada ah suuqa ku bedel waxa ula jeedo kaliya maaha suuqa ina ku tababarato ina wax aad dhahdo waxa kale ula jeeda dadkan waxay ku hadlayaan dhageyso qofkan wuxuu ku dhaamo eray oo sayd u isticmaalo aad jirto eraygaas maanta u isticmaalay beriyo isticmaalay berdambo isticmaalay isku day ina weydiiso asaga niyo waxa maxaa ula jeedaa qofka hadii ay ka baqayso iyo soo qor oo ku soo sharaxay qof kale weydiin kartaa qaabka lagu baranayo marka luqadda waa qaabkaas inaadan waxa ka xishoonin sababta aw leenahay hada dhageysiga mise daawashada luqadahan kale soo xilwa ugu fiican waxa lagu dhahayn waxa waaye ayaga hadii ku hadlayaan Englishkan waa hal English ku fududa hadii afturku lagu hadlaa waa afturkigan ku fududa asbana malena soo xilli marka luqluqo badan oo iska leeyahay lahjada badan oo iska leeyahay eraya badan waxa arkaysa hadda adaab yaqaanabo hal eray oo eray macnooyin kala leh oo eray kala lagu isticmaalo arkaysa marka waxaan malena 10 in laga faa'iideystay
haddii waxyaabo kale aan ka tagay ee jiraanne si aan video ugu dheeraanin insha allah waa wixii igu soo dhaco video kale waa idin samayn doonaa insha allah. channel kala taageero ardayda yaa la hilmaamin. okay, su'aalaha rabo marka su'aasha aan rabo inaan idinkaaga tago waxaa waaye ardayda qaarna aa weydiiyey waa inaan Soomaali ahaan igu soo qorto shinni ayaa iqaniintay, shinni ayaa iqaniintay. Soomaali ahaanteeda ayaa la iska rabaa. halaas ku soo gabagabaynaynaa. wabilaahi tawfiiq.